daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar oo maanta aan si qoto dheer uga hadlayno taariikhda Soomaaliland marxaladihii ay soo martay iyo sababihii keenay inay dib ula soo noqoto gooniistaageeda madaxweynayaashii soo maray doorashooyinkii ay qabatay iyo waxa shacabka Soomaaliland ay uga dhigan tahay munaasabadda 18 May marka laga hadlayo taariikhda Soomaaliland waxaa muhiim ah in dib loogu noqdo xilligii gumaysiga dhulka maanta loo yaqaan Soomaaliland waxa hore uu ahaa oo maamulayay gumaystihii Ingiriiska waxaana loo yaqaanay British Somaliland Protectorate. Ingiriisku waxa uu si rasmi ah gacanta ugu dhigay sanadkii 1984 xilligaasi oo quwadaha reer Yurub ay u tartamayeen qaybsiga qaaradda Afrika. Ingiriisku ujeedadiisu waxay ahayd inuu ilaashado marinbiyoodka loo yaqaan badda cas iyo waliba danaha uu ka lahaa markaasi gacanka cadmeed. Muddo 70 sano ah shacabka ku nool waqooyiga Soomaaliya waxa ay ku jireen nidaam gumaysi balse waxaa jiray halgan joogto ah oo dadka deegaanka ay kaga soo horjeedeen gumaysiga. mid ka mid ah halgamadii ugu weynaa ee soo maray waqooyiga Soomaaliya waxa uu ahaa kacdoonkii uu hogaaminayay Allah u naxariistee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo waliba ciidamadii daraawiishta. inkastoo halgankaasi uu saameyn ku yeeshay guud ahaan geyga Soomaaliyeed haddana waqooyiga Soomaaliya waxa uu noqday goobihii ugu waaweynaa ee iska caabinta gumaysiga. haddana waxa uu noqday inkastoo dagaalkaasi uu saameyn ku yeeshay guud ahaan geyga Soomaaliyeed haddana waqooyiga Soomaaliya waxa uu noqday goobihii ugu waaweynaa ee iska caabinta gumaysiga uu kala kulmo. kadib dadaalo iyo halgan dheer British Somaliland waxay xorriyadda qaadatay 26 Juun 1960. maalintaasi waxay ahayd maalin si weyn ay dadka Soomaaliyeed u xuseen una farxeen kana baxeen gumaysigii muddada dheer joogay geygooda. waxaana shacabka Soomaaliland ay heleen xorriyad buuxda oo ay kaga baxeen gumaysiga Ingiriiska. Soomaaliland waxay noqotay dal madax bannaan muddo gaaban. 5 maalmood kadib 1 Luulyo 1960 Soomaaliland waxa ay ku biirtay Soomaaliya inteeda kale qaasatan intii uu gumaysanayay Talyaaniga oo iyaguna xornimada qaatay xilligaasi si loo mideeyo labada gobol ee Soomaaliyeed loona helo Jamhuuriyad Soomaaliyeed. midowgaasi waxa uu ku yimid dareen wadaniyadeed iyo rajo weyn oo laga qabay in la helo Soomaali midaysan. dad badani waxay rumaysnaayeen in midowgaasi uu horseedi doono dawlad xoog badan oo samaysa horumar siyaasadeed oo ballaaran. si kastaba ha ahaatee sanadihii xigay waxaa soo baxay cabashooyin la xiriira awood qaybsiga maamulka dawladda iyo sida loo wajahayo danaha gobolada waqooyi. dad badan oo reer Somaliland ah waxay dareemeen inaan si siman loo qaybsanaynin ama loo wadaagaynin siyaasadda iyo dhaqaalaha dalka. cabashooyinkaasi waxay sii xoogeysteen markii uu dhacay afgambigii dhinaca militariga ee sanadkii 1969 markaas oo talada dalka uu la wareegay Allah u naxariistee Maxamed Siyaad Barre. xukunkii militariga ahaa waxa uu dalka ka hirgeliyay nidaam adag oo awood badan qaasatan dawladda dhexe oo la xoojiyay. intii lagu guda jiray 70-maadkii ilaa 80-maadkii waxaa jiray xiisado siyaasadeed iyo dagaalo gudaha oo saameeyay qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ah qaasatan Somaliland gaar ahaan waxaa curtay dhaqdhaqaaq mucaarad ah oo la oran jiray ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed oo loo yaqaan SNM. waxaa la aasaasay sanadkii 1981 waxaana saldhigyo ay ka samaysatay daliilka dariska ah. ujeedadu waxay ahayd inay ka hortagto xukunkii militariga ahaa ee Siyaad Barre oo ay ku eedeynayeen tacadiye iyo cadaadis ka dhan ah shacabka waqooyiga Soomaaliya. dagaalo culus ayaa dhex maray ciidamada dawladda iyo waliba xoogagii SNM. sanadihii 1988 wixii ka dambeeyay waxaa dhacay dagaalo aad u xoog badan oo si gaar ah u saameeyay magaalooyinka waaweyn ee Hargeysa iyo Burco. magaalooyin badan ayaa burburay, kumanaan qofna waa ay ku nafwaayeen colaadahaasi. boqolaal kun oo kalena waxa ay ku noqdeen qaxooti. dad badan oo reer Somaliland waxa ay u arkaan mid ka mid ah sababihii ugu weynaa ee horseeday in dib loo raadiyo gooniisutaag. kadib burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991 shir ballaaran oo ka dhacay magaalada Burco ayaa looga dhawaaqay in Somaliland ay dib loo soo noqotay madax bannaanideedii 26 Juun 1960. taariikhdu waxa ay ku beegan tahay xilligaas 18 May 1991 waana maalinta Somaliland ay u aqoonsatay maalinta ay dib ula soo noqotay gooniistaageeda. 18 May waxay shacabka Somaliland u tahay maalin qaran oo si weyn loo xuso sanad walba.
dadka reer Somalilandna waxay maalintaasi u arkaan astaan muujinaysa dib u dhiska nabadda iyo dadaalkii ay ku gaareen nidaamka siyaasadeed ee geygoodu maanta ka hirgalay. Magaalooyinka waaweyn ee Somaliland sida Hargeysa, Burco, Berbera, Boorama waxaa lagu qabtaa dabaaldegyo waaweyn oo lagu xusayo munaasabadda 18 May. waxaana la qabtaa munaasabada lagu xusayo halgankii SNM iyo dib u soo noqoshada madax banaanida. markii Somaliland ay ku dhawaaqday gooniistaageeda kadib waxaa bilowday geedi socod adag oo dib u heshiisiin iyo dib u dhis ah. odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, bulshada rayidka ayaa door weyn ka qaatay nabadeynta beelaha walaalaha ah ee wada deegaanada waqooyiga Soomaaliya. shirar badan ayaa lagu qabtay magaalooyinka kala duwan waxaana lagu heshiiyey in la sameeyo nidaam dowladnimo oo ku saleysan wada tashi. madaxweynihii ugu horeeyay ee Somaliland waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Axmed Cali Tuur oo hogaaminayay xilligii lagu dhawaaqay gooniistaaga. dowladdiisu waxa ay wajahday caqabado badan oo ay ka mid ahaayeen dhinaca amniga, dhaqaale xumida iyo sidii loo midayn lahaa bulshada. inkastoo xilligaasi uu ahaa xilli adag, haddana waxaa la dhigay seeska dowladnimada Somaliland. sanadkii 1993 waxaa magaalada Boorama lagu qabtay shir weyn oo lagu doortay madaxweynihii xigay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. madaxweyne Cigaal waxaa lagu xasuustaa inuu door weyn ka qaatay xoojinta hay'adaha dowladda, dejinta nidaamka maamulka iyo dib u soo nooleynta dhaqaalaha. intii uu xilka hayay waxaa Somaliland ka hana qaaday nidaam maamul oo sii xoogeysanayay. Cigaal waxaa sidoo kale uu ku dadaalayay in Somaliland ay yeelato astaamo dowladnimo sida inay yeelato lacag u gaar ah, ciidan iyo astaamo dowladeed oo ay ku shaqeyso. inkastoo ayna helin aqoonsi caalami ah, haddana Somaliland waxa ay isku dayday inay dhisto nidaam dowladeed oo shaqeeya oo ku tiirsan gudaha. kadib geeridii madaxweynihii Somaliland Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal sanadkii 2002 waxaa xilka si ku meel gaar ah ula wareegay ku-xigeenkiisa Daahir Riyaale Kaahin. Daahir Riyaale waxa uu noqday madaxweynihii saddexaad ee Somaliland waxaana hogaamiyay xilli ay Somaliland si weyn ugu tallaabsanaysay dhinaca dimuqraadiyadda. sanadkii 2001 Somaliland waxay afti u qaaday dastuurkeeda cusub, waxaana aftidaasi lagu ansixiyay nidaamka xisbiyada badan iyo qaab dhismeed dowladeed oo Somaliland yeelato. aftidaasi waxay ahayd tallaabo muhiim ah oo muujinaysa rabitaanka shacabka ee ku aadan nidaam doorasho. doorashadii ugu horeysay ee golayaasha deegaanka ayaa laga qabtay Somaliland sanadkii 2002 waxayna Somaliland yeelatay 3 xisbi oo la kala oran jiray Udub, Kulmiye iyo Ucid. sanadkii 2003 Somaliland waxa ay qabatay doorashadii madaxtooye ee ugu horeysay. doorashadaasi waxay ahayd mid aad loogu tartamay waxaana ku guuleystay Daahir Riyaale Kaahin oo helay farqi codad ah. inkastoo natiijada lagu murmay, haddana ugu dambeyn si nabad ah ayaa loo aqbalay. doorashadii baarlamaanka ee ugu horeysay waxa ay dhacday sanadkii 2005. doorashadaasi waxay ahayd mid kale oo muujinaysay dadaalka Somaliland ee ku wajahan nidaamka dimuqraadiga ah. xildhibaanadii la doortay waxa ay matalayeen 3 xisbi qaran. muddadaasi kadib Somaliland waxa ay wajahday dib u dhacyo doorashooyin oo la xiriiray arrimo farsamo, dhaqaale iyo khilaaf siyaasadeed. si kastaba ha ahaatee, nidaamka doorashooyinka ayaa sii socday. sanadkii 2010 waxaa la qabtay doorasho madaxtooye oo ku guuleystay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ka socday xisbiga Kulmiye. madaxweyne Siilaanyo waxaa lagu xasuustaa Allah u naxariistay xilligaasi in Somaliland ay xoojisay xiriirka dhinaca dibadda iyo kaabayaasha dhaqaalaha. intii uu xilka hayay Siilaanyo waxaa la sameeyay heshiisyo ku saabsan dekedda Berbera. waxa ay noqotay mid ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee dhinaca dhaqaalaha Somaliland. sanadkii 2017 waxaa la qabtay doorashooyin kale oo madaxtooye waxaana ku guuleystay Muuse Biixi Cabdi. doorashadaasi waxa ay soo jiidatay indhaha caalamka waxaana goobjoog ka ahaa kormeelayaal caalami ah. Somaliland waxa ay mar kale isku dayday in ay muujiso in ay leedahay nidaam doorasho iyo nidaam dowladeed oo casri ah. Muuse Biixi Cabdi waxa uu xilka hayay xilli ay jireen doodo ku saabsan aqoonsiga Somaliland, xaaladda gobolka iyo xiriirka ay la leedahay Soomaaliya inteeda kale. waxaa sidoo kale jiray murano siyaasadeed iyo dib u dhac doorashooyinka Somaliland waxaa inta badan lagu tilmaamaa kuwo nabad ah marka la eego xaaladaha ka jira qaybo badan oo ka mid ah gobolka. doorashada golayaasha deegaanka 2012 waxa ahayd mid kale oo muhiim ah. sidoo kale sanadkii 2021 waxaa si wada jir ah loo qabtay doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka. doorashooyinkaasi waxaa lagu tilmaamayaa kuwo si nabad u dhacay
inkastoo ay jireen caqabado iyo cabashooyin dhinacyo kala duwan ah. Marka laga hadlayo aqoonsiga caalamiga ah, Somaliland ilaa iyo hadda ma helin aqoonsi rasmi ah oo caalami ah inkastoo ay leedahay dowlad, lacag, ciidan iyo calan. Somaliland waxa ay ku doodaa inay tahay dowlad madax bannaan. Dowladda federaalka ee Soomaaliya dhinaceeda, Somaliland waxa ay u aragtaa qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, waxaana marar badan jiray wadahadallo u dhexeeyay dhinacyada. Wadahadalladaasi waxa ay ka dhaceen dalal kala duwan sida Turkiga, Djibouti, Imaaraadka Carabta. Dadka taageersan gooni-sutaagga Somaliland waxa ay sheegaan inay ku guuleysteen nabad, doorashooyin, nidaam dowladeed oo shaqeeya, halka kuwa ka soo horjeedana ay qabaan in midnimada Soomaaliya ay muhiim tahay. 18 May marka la gaaro, shacabka Somaliland waxa ay muujiyaan dareen qiiro leh. Magaalooyinka waaweyn waxa lagu qurxiyaa calanka Somaliland oo leh 3 midab. Waxa la qabtaa bandhigyo ciidan, heeso wadani ah, munaasabado lagu muujinayo taariikhda halganka. Qoysas badan waxa ay maalintaasi u tahay xusuus ku saabsan dagaaladii iyo dhibaatadii ay soo mareen. Dhalinyarada Somaliland badankoodu waxa ay ku barbaareen nidaam ay Somaliland isu muujiso in ay tahay dal madax bannaan, waxayna 18 May u arkaan maalin muujinaysa jiritaanka iyo himilada ay qabaan. Waxayna sidoo kale jira dad badan oo maalintaasi u arka fursad lagu xoojinayo nidaamka bulshada iyo weliba nabadda gudaha. Warbaahinta Somaliland maalmaha xuska waxa ay baahisaa barnaamijyo u gaar ah oo looga hadlayo taariikhda halganka SNM, dib u heshiisiinta iyo horumarka Somaliland ay gaartay. Somaliland waxa ay ku taallaa meel istiraatiiji ah oo ku dhow gacanka Caddeed, taasi oo ka dhigaysa marin muhiim ah oo ganacsi. Dekedda Berbera waxay noqotay xarun dhaqaale oo sii kobcaysa, waxaana lagu sameeyay maalgashi ballaaran. Arrimahaasi waxa ay sare u qaadayaan rajada Somaliland ay ka qabto in hesho xiriir caalami ah oo xooggan. Haddana Somaliland waxay sii wadaa dadaaladeeda ay ku doonayso inay dunida ay ka dhaadhiciso mowqifkeeda siyaasadeed. Madaxda Somaliland waxa ay safarro ay ku tagaan dalal badan si ay ugu sharaxaan sababaha ay u doonayaan aqoonsi. Dhinaca kale, siyaasadda gudaha Somaliland mararka qaar waxa ay wajahdaa murano doorasho, khilaafyo xisbi iyo doodo ku saabsan muddo kordhin. Si kastaba ha ahaatee, nidaamka dhaqanka iyo wada hadalka bulshada ayaa door weyn ka ciyaara xalinta khilaafaadka. Taariikhda Somaliland marka la eego waa mid isku dhafan oo isugu jira halgan, burbur, dib u heshiisiin iyo dadaal lagu doonayo nidaam siyaasadeed oo shaqeeya. Dadka reer Somaliland waxa ay si gaar ah ugu faanaan nabadda ay haystaan iyo weliba sida ay u ilaashadaan marka la eego marxaladaha adag ee ka jira Geeska Afrika iyo weliba dhinacyada kale ee Soomaaliya. Xuska 18 May ma aha oo kaliya dabaaldeg siyaasadeed, balse sidoo kale waa maalin ay dad badan ku xasuustaan marxaladihii adkaa ee ay soo mareen. Waa maalin dadka qaarkiis u muujinaysa rajo, halka kuwa kalena ay ku muujinayaan dareenkooda ku saabsan mustaqbalka Soomaaliya iyo Somaliland. Marka la soo koobo, Somaliland waxa ay leedahay taariikh dheer oo ka soo bilaabmaysa xilliga gumaysiga. Madaxweynayaasha Somaliland waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro oo hadda haya talada Somaliland, wuxuuna ku guuleystay doorashadii ugu dambeysay ee qabatay Somaliland oo kaga guuleystay Muuse Biixi Cabdi. 18 May waxay Somaliland u tahay maalin si weyn ugu taagan jiritaankeeda, taariikhdeeda, himiladeeda mustaqbalka. Waana maalin isku darsata farxad, xusuus, qiiro iyo doodo siyaasadeed. Daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee sida tooska aad uga daawanayseen Wama TV oo ka hadlayay xuska 18 May iyo taariikhda Somaliland. Haddaad ku cusub tahay baraha aan ku leenahay bulshada, ku soo biir channelka, subscribe noo saar.